وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب. haddaan xaqiiqada laga hadlay oon xaqiiqada la wajihin oo korkaas la iska marmaro wax ma hagaagayaan. dib u heshiisiin mar badan ma maqlino yaa dib u heshiisiin loo qabtaa waxa loo qabtaa in marka hore heshiis ah inay hotel ku wada qadeeyaan ogol oo miiska dhinacan ka fadhiisto kana dhinacan ka fadhiisto yaa wax kor waxa loo qoraa darbiga ah dib u heshiisiinta maxaa dib u heshiis way wada fadhiyaan baa yaa la heshiisiyaa dad aan miis isugu imaanaynin dad aan is arki karaynin dad isdiyaaya dad aan waxba ka dhaxaynin ayaa la heshiisiyaa dhibka hadda dadka isku haaya isla aan u dhibanahay tan shacabka Soomaaliyeed nahayna xaguu ka socdaa wuxuu ka socdaa hubka iyo inta hubaysan mucaaradkan hubaysan hatta mushkil ma leeyahay dhibku kuma haaya xaguu istaagaya kalimadka jeedinaya dawladdu way khaldan tahay dawladdu way khaldan ma loo dhinto dawladdu khaldan tahay kaas heshiisiintiisu khaladka uu sheegay la iska dhaaf bis ko muqaayad soo galay waxa la yiri sokor iyo waxbu qabay wuxuu yiri sokorta haygaga soo daray waan iska mashquulsan oo ahaaye sokortii ku soo daray shaayina korku uga soo daray uu soo hordhigay markuu soo fiiriyay nus wax ku dhow sokor waa markaas sokor uu qabay dhiigkarka ku kacay qaylo wiilkii yaraa ku qaylo wariyaas oo kuma dhin sokor haygaga soo daray maxaa sokor ku soo dartay wiilkii kaba baa wuxuu yiri adeer ha ku qasinno korle kacbis marka waxaan ka wada kii mucaarado waxba dilaynin oo la dawladda halkaas ay ku khaldan tahay Soomaa wixii ay ku khaldan tahay la sheegay ha ku qasinno adi meeshii la iska toosi laakiin waxa dib u heshiisiin u baahan dadka isdilaya wallahi war adi maxaa rabtaa adna maxaa rabtaa Soomaali waxay yiraahdaan hadii la isla ogolaado bal maxaan isku haynaa marka maxal waa la helaa laakiin hadii la taagnaado waan soo afjaraaya 30 sano al soo afjaraay waxna la soo afjaray marka 30 kale ma ku darsanaa marka si la soo afjaro mise halka aan raadinaa war aragna meeshaan si xal yahay waxa baabiina waa ummadda Soomaaliyeed waxa dhamaanay waa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan waxa si baabay reer Muqdisho waa caasimadda ummadda Soomaaliyeed sabir badnideeda Muqdisho magaalo la mid ah ma jirto waxa ka dhacaya iyo sida ay tahay waa sida moogtay dhulka alam naj'al al-ardha kifatan soo ilaahay ma dhihin ahyaan wa amwatan dhulka waxa la yiri kan nool iyo kan dhintayba uu kaafiya kan noolna kor ayuu kaga socdaa oo kaga nool yahay kan dhintayna hoos uu ka degan yahay kan hoos ka degan kuwa waxa jira cadaabul qabri ku jiro oo la ciqaabayo wax og ma jirto dhulku sabir badana waa u daboolan tahay hoos waa laga jucinaya kuwa ahlu naarka aha hoos ay ku jiraan korna waa laga socdaa alam naj'al al-ardha kifatan wa marka magaalada Muqdisho waxay tahay waa magaalo oo kifaatan oo dadku ay ku filan tahay wax kasta oo lagu sameeyo waa iska taxamulaan dibba ma warkab ma iska jooga waa la tumaa ma iska soconay waa la tumaa wali ayagoo dhahay maartay waa goosanayna anaga Soomaali wayna dhibtay ma jirto nugu korsaday leedinka ilaaha jooga la iska lana laakiin waxa u baahan tahay inaan tashano dhahno maxaa xal inoo saan yeelnaa hatta moogtay qofka hadii aad iska kiri weydo hatta waa iska tuutuugaa moogtahay walaalo maxay iga rabtaa al dhahataa walaalo maxay iga rabtaa lama le la iska mana celinaayo jugjug meeshaada joog kolba madaxuna loo dhigay madaxdiina soo tuuriyo qarxi la soo dhigo kii dhinta la soo aaso ilaahay u naxariisto markaas kulli wala soo ducaynaa intii meesha ku dhimatay allah u wada naxariisto kii dilay iyo kii dhintay kulli allah u wada naxariisto inta noolna allah wada kulligeen marka allah wada naxariistaana marka xal ayay naga rabtaa xalkuna islaamku ku jiraaye islaamkeena iyo diinteena intaan aamino makriga iyo shirqoolada laynoo maleegayo ee laynagu sameynaayo ee danteena aynu ku jirin ee gaado ay sameynayaan iyo inaan sidaan ka baxan aan diyaarka loo ahayn seen la lagu haayo sidii looga bixi lahaa hadayna dad u kicin oo warseen ka yeelna laga tashanin saan baa lagu jiraa